wasiirada deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa maanta waxay safar shaqo ku timi magaalada Berbera waxaanay kulan la qaadatay maamulka gobolka Saaxil iyo hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaraddaasi ee gobolka. Kulankan ayaa waxa lagu dardargelinayay hawlaha shaqo ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland. Ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Cismaan Xasan waxaanu wasiirada uga mahadnaqday socdaalkan ay ku timi gobolka Saaxil. wafdigan ballaaran ee wasiirka deegaanka hogaaminayo marka hore waa soo dhaweynaynaa. saaka halkan waxaa nagu soo booqday wasiirkii maxaan ku dhahay deegaanka. waanu u baahannahay ka gobol ahaan in mar walba wasiirka oo aad isku lug joogno oo aanu si dhow uga wada shaqeyno xaaladda gobolka xagga deegaanka oo mar walba wasiirka kaliya ee nagala soo xiriiraya ama nagu garab taagan mar alla markan xaalad deegaan naga hor timaado iyagoo xil saaran wasaaraddoodii tahay ayaa haddana waxay sii dheer tahay in saacad walba markaan xitaa la hadallo aanu heli karno. wasiirada deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa waxay ka warantay hawlaha shaqo ay u timi magaalada Berbera. waxaan u soo baxnay shalayto kormeer hawleed oo ugu soo baxnay gobolka Saaxil. gobolkan waxa weeyaan gobolka Saaxil markan waxa weeyaan waxaan u maleynayaa hadii imka gobolada tartan la gelin lahaa xagga deegaanka hadii tartan la gelin lahaa inuu number 1 ka qaadayo koobka uu qaadanayo sababta waxa weeyaan waxay gidigood u wada helayeen siday noogala shaqeyn lahaayeen deegaanka. marka aan deegaanka hadaynu si kala yar qaadno bariyahan dambe Saaxil waxa ku soo badanayay warshadaha waxa ku soo badanayay dekedoola iyadana laga shaqeynayay airportku laga shaqeynayay wadada corridorku laga shaqeynayay hawlo aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka socda horumar gobolka Saaxil oo gobolka kaliya aan faa'iido u ahayn qaranka oo dhan faa'iido runtii u ah. annaguna marka maanta waxaan ku soo siyaaranay annagoo inta badan ka wada soconna hawlaha socda maanta waxaan ugu nimi inaanu bal iska weydiino halkay hawluhu marayaan. inta badan hawlaha qaarna meel dhaxay marayaan qaarna way isugu yihiin wixii soo baxa marba wixii lagu maareyn doono hadii la yiraahdo. xeerka imaka isaguna xeer weyna oo 79 xeer 79 7 xeerka nambarkiisu yahay 2018 xeerkaasi waa xeerkii maareynta deegaanka oo guud oo dhan xeerkaas ay wada hoos imanayaan xeerarka kale oo dhani halkaas qof walba iska ilaashanaya halku kaga jiro waxaana weeyaan sidii loo wada shaqeyn lahaa. way waxa weeyaan xeerkan waa xeerkii soo koobayay deegaanka oo dhan hadii la yiraahdo horumarkiisa oo dhan soo koobayay 2018 ayuu ahaa imakunba soo baxay dhowr bilood baan hadda haynay waana qaybinaynaa hadii la mar labaad iyo mar saddexaadba xoolo horta maan arag magaaladii dhexmaraya ilaahay khayreena siiye geed cunaya mayno arag xoolihii dabadoodii halkoodii baa loo daayay. waa regionka kaliya maanta aan xoolaba dhex joogin geel maraaye oo number ku qoran yahay ari dhex maraayo number ku qoran yahay midna laguma hayo gobolka Saaxil. meel saliid lagu qubayana oo baabuurtii saliid ay qubayaan way yar tahay oo meel baa in kale ay u sameynayaan baabuurtii oo dhan waanay ganaaxan milyan iyo 200 baa laga qaadaa gaariga lagu qabtay isagoo magaalada saliid ku dhex shubay lacag wanaagsan oo dakhliga halkaas ka soo saara. taasina waan ku amaanayaa. ta kalena dhiraynta inaan dhirta xoolaha baa cunayo looga baqayay dhiraynteeduna aad iyo aad bay u fiican tahay. horta runtii bacna ma narag iyo qashin orday midnaba 12 baabuur gaar midba ka kale ka darayay bay haystaan oo xaafad walba ka qaadaya bacna ma hayno oo bici ordaysana ma hayno bici way iska xakameynayaan iyaguna. marka waxaan anigu oran lahaa lagu daydo Saaxil qashin meel iska yaalo dadku soo qubayaan ma jiraan way xagga Hargeysa dadka bay raacinayaan biyo yaraaye soo rugmada dad baa raacinaya qashinkii halkan waa ka mamnuuc qofka lagu qabto qashin raacinayana hadalkiisa bay iska daa. marka inaynu wax badan kaga dayano u baahnaysa inuu kala horumarsanahay. waa run Hargeysa waa caasimad weyn Burco waa caasimadii labaad haddana oo dadka ku badan haddana xakameynba waxaan oo dhan u baahan yahay. marka intaada yar markaad hagaajisato inta weyn way hagaajinsan karaysaa. marka anigu waxaan leeyahay ilaahay haydinka khayr haydinka siiyo. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada Berbera.